السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وان إن السلام ولا لها الصوماليات. دمانتي وان إن السلام سود وذا وحنتي على إن شير كريسان بيش كرافلوتان شير كري ولا لها الصوماليات حنتي على إن شير كريسان بيش كرافلوتان بيش حنتي على إن شير كريسان بيش كرافلوتان هتشير كلتان هي حنتي على هاي إن ولا لها الصوماليات سود وذا ما تستوي سودتين waxaan ina sheegayaa dhibka ka jira Soomaali meel kasta ay joogto dhibka ka jiro buuqa ka jiro marka ilaahayna dhibaatada naga bixiyaan leenahay soo dhawaada iid ka bacda inuu aan soo gelin maanta la soo galay hal liijir laakiin meel walba buuq iyo cabaada ka jiro haday noqoto Soomaaliya haday noqoto Itoobiya haday noqoto Kenya wax la sheegay ilaahay horta waxaan la yardhibka naga bixiyo Soomaaliya hadaa buuq Allah naga bixiyo laba meel baan rabaa inaan ka hadlo gelinka shanaad Itoobiya ay isku hayaan reeraha Soomaaliyeed iyo macdan wadada qoodiga Itoobiya ku shaqeynayo iyo shacabka Soomaaliyeed waxay isku hayaan media isku caynayaan yaan rabaa inaan yar ka hadlo shacab hadda kuma badaalay dhibaatada waxa wada nimankan ay madaxweynaha Mustafa Cabjar iyo waxaan ka hadlayaa iyo ninka kale ma jirteen oo uu doorto degmada doolo uu geystay marka degmada hal ijra uu geystay isha wardheer uu geystay marka oo dadka maxana shacabka la laayna la xiraayo Mustafa Raaya in yar meesha kala hadlo waxa kale oo jirta idana dalkanayda Kenya dawladda Kenya iyo Soomaali iyadana waxa yar isku hayaan jirta arrimo isku hayaan jirto oo laakiin qof reer Gaarisa loo siyaasadda madaxa loo saarayo waxa madaxa loo saarayna waa aadan barre ducaale ayaa madaxa loo saaraya dadka reer Soomaaliga dawladda Kenya haday iyagu ay ma aragtay iyagu ay siyaasad ka dhaxayso aadan barre ducaale lagu soo laabaya aadan barre ducaale ka dambeeya la reeyahay aadan barre ducaale ku jaajuusaan leeyahay marka Soomaali waligeed ba ayada dhaxdeeda kala ma dhamaato dadka kale ay ka baqanayaan iyagu dhaxdooda isku soo jeesanayaan marka ayaga dhaxdooda yaa isku soo jeesanayaan ayaga dhaxdooda ma aragtay isma rabaa Soomaalida marka odayaasha reer Gaarisa baa la maagsan yahay oo lagu maagsan yahay xagga ma aragtay Kenya iyo Soomaaliya dhaxdeeda xanta iyaga ka dambeeya baa leeyahay marka ruuxa saar dhahayna waa nin ma aragtay kuwa farmaajo lacagta siiyeen meelaha media ka qayliyaan ninka raxaweynta waagi hay'adaha u shaqeyn jiray la sheegay qoliyo afka dubnaba risaas badantay ku fureen dhimani waay la dhigi jiray carari jiray xaq qurbaha gal jiray ninkiiba asagana hal dhaaf afka iska furtaayo 24 saac odayaasha reer Gaarisa laga soo doorto iyo ku dhagan yahay uu leeyahay dawladda Kenya ayaga dadka soo riixay dhibaatada ka dambeeyaan marka ninkaasna kulli waxaan u malaynaa waad wada garanaysaan waa nin beesha raxaweyn ah waa nin meelaha qurbaha jooga waa ninka qoliyo afka dubna hadda ka hor soo hayay shaqeynaa intay qabteen risaas badantay ku fureen markii dambana cararay hay'adaha nabadgelyo ma haysan intuu intii la qaado qurbaha la geeyay ninkiiba 24 saac wuxuu ku dhagan yahay odayaasha reer Gaariso aadan barre subxaaji kulli ragaas ku dhagan yahay uu leeyahay ayaga dawladda Kenya dabada ka wadan ayaga Kenya ugu soo dirihayaan 24 saac ninkaas wuxuu ku dhagan yahay meesha asagoo Soomaali inuu hadlo ma garad arrintan in Soomaali dhaxdeed isku keeno ma aha laba dawladood Soomaali iyo Kenya laba dal bay kaliin wax Soomaali oo shaqo meesha la soo galiyay ma aha marka haday dawladda Kenya ayaga ka cabsanayaan inay Soomaalida reer Gaarisa ku soo jeestaan ma aha marka Soomaaliya waa la isqaanahay aamuso oo afkiina wax reebto oo Soomaalidiina aad ku dhagsantiin iska dhaaf marka reer Gaarisa shaqo kuma lahan Kenya iyo Soomaali dhaxdood shaqo kuma lahan waana dad dawlad yaro igan qoofmidi wax leefan ku hayo soo wariga bax oo su'aalihiin Allah ma soo baxartid iga bax walaalayaal hooyadiina in sheegay iga bax anis bixina ma yahay ما يداوي ببراين داف يقبح يا خي يقبح محمد والباب يعل marka maxaa la ijraan odayaashana lagu dhagsan yahay reer Gaarisa waliba aadan barre lagu dhagsan yahay aadan barre ducaale waxaan ku dhagisan dawladda nabad iyo nolol kuwan afayaankooda oo maaragtay meelaha qurbaha jooga lacagta la siiyo ninka raxaweynta ah ninka raxaweynta hadda ka hor qoliyo afka dubna ay qashqashaadeen Soomaaliya soo hay'ado u shaqeynaa qashqashaadeen kadibna qurbaha la geeyay
ninkaasaad moodaa odayaashii ogaadeen beegsigoon inuu ku hayo marna 24 saac midoow ku dhagan yahay marna odayaashii kala Kenya ka shaqeynayna Soomaaliya reer gaarsi u dhigsan yahay marka dawladda Kenya waxay samaysado adin nimanka ogaadeen buu madax u saaray ma garatay marka ninkaasna anaga waan qaban doona mar haddii waxa la yiri haddaan isaga qaban waayna bedelkiisa qabanayna waxa la rabun hadii la waay bedelkiisa la dooraa ballan waay ninkaas afku biyo ka waday hadduu dabada xaar ka keenay been baan u sheegay ma garatay loogama haray ninkaas raad weyn baa ku daba isaga la soo qaban wallahi meeshu taagan yahay laga qabo marka taarta halka iga waxaan la hadlayaa gelinka shanaad waxaan la hadlayaa Mustafa Cagjaro adiga beriga hore wax la dilay iyo wax la xirayo walaal ka taban jirtay abdi ilay waagu xukunka adiga ka taban jirtay meelaha media ka qeelisan jirtay jirtay abdi ilay dadka xirista mukadaay dadka dilista mukadaay jirtay hadda maxaa maxaa ka jira wardheer dhibaatada lagu sameeyay aad dalkii hadda madax weey abdi bedelkiisa aad hadda taagane maxaa laga hayaa wardheer maxay ninkan ma jeerteen dadka xiraya qabaalkii intuu soo kaxaysta laba qabaal oo new boris intuu soo kaxaysta beeshi makaahila wardheer ka soo jeed iyo caawlahanki meesha degana intii laba qabaal loo keensaday la xirxiray la dilay isbitaalka wada jiifan 30 qofna la xiray 30 qofna la dhaaway 200 qofna la dhaaway maxay tahay abdi ilay wixii lagu xiro soo dad diris iyo dad xiris ma ahaan sidaas ma rabtaa adiga inaad hadda shaqadaada abdi ilay yani abdigi labaad baa la keenay miya sheekada wardheer hadda abdigi labaad baa la keenay Mustafa Cagjar marka hore isbanbuuninayo dhigi jiray wax la xirayo wax la dilay iyo dad la dulmiyay banka soo horjeeda biyuu dhihi jiray marka wuxuu dhihi jiray dad la dilay dad la soo xiran ka soo horjeeda hadda sama waxay noqotay Mustafa Cagjar inuu dadkii min xiro min dib oo nin uu soo kaxaysta ma jeerteena oo beeshi makaahi lagu xasuuq oo lagu xiro sheekada hadday noqoto jidku abdi mare abdi ilay kaamu xumeen ma garatay sida aad hadda sameynayso oo asagana sameyn jiray jidkaas baa adigana lagu marinay jidkaas baad adigana maraysa xabsiga abdi la geeyo baa adigana lagu geeynaya marka siyaasadan kale ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxayso oo beesha reer gaarisana lagu beegsanay leelay Kenya ayaga ka dambeeya taasna wallahi meel loogama soo haray iidan meel baa la geeyn doona ma fahantin hal iskala farabaxan iiraanta laakiin intaas uga baxaya leeftan ilma qol igu soo galeen iga garab buuq iga garab buuq meel aan ku hadlada mahad laakiin intaas uga baxaya arintaas jirto marka sheer garay horta beeshka kala dara marka la soo keenay